waxaan ka hadli doonaa ururka Taliban. waxay la dagaalamayeen dawladda iyo xulafadeeda Afghanistan muddo 20 sano ah. maanta waxay u muuqdaan kuwo ka xoog badan sidii hore. Taliban waxay leeyihiin qidad dagaal, sidoo kale waa kuwo arxan daran. Hadda waxaa la gaaray waqtigii ciidamada Ameerikaanka ay ku laaban lahaayeen guryahooda. Biden waxa uu rabaa inay ciidamadiisu baxaan 11 September. taasina waxa ay sii xoojin kartaa Taliban. haddaba maxay yihiin Taliban? intee ayay awoodeedu la eg tahay? maxayse dadka ugu walwalsan yihiin inay la wareegaan Afghanistan mar kale? haddaba si aad u fahanto Taliban waxaad u baahan tahay inaad ogaato wixii ka dhacay Afghanistan 1980-meeyadii. jabhadihii Afghanistan oo markaa loogu yeeri jiray mujaahidiinta ayaa 9 sano la dagaalamayay midowgii Sofiyeeti, waxayna garab saanad ciidan iyo hub ka helayeen CIA-da Mareykanka. kadib 1989kii markii midowgii Sofiyeeti ay ka baxeen Afghanistan, waxa uu wadanka galay xaalad fowdo ah. 1992kii waxaa dhacay dagaal sokeeye oo aad u baahsan. qabaa'ilada ayaa awoodda ku dagaalamayay. 2 sano kadibna urur lagu magacaabo Taliban ayaa la soo baxday foojignaan. xubno badan oo ururkan ka mid ahaa waxa ay wax ku barteen iskuulada diiniga ah ee Afghanistan ee ku yaalay xadka Pakistan uu la leeyahay wadankaas. qaar badanna waxa ay ugu soo biireen qaab mujaahidiin ah, waxayna lahaayeen qorshe u gaar ah oo wadanka ku xukumaan. waxaan rabnaa inaan Kaabul qabsanno kabacdina aan ku dhawaaqno dawlad Islaami ah. sanadka 1996 Taliban waxa ay qabsatay caasimada, waxa ayna ku dhawaaqeen imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, waxayna bilaabeen inay wadanka ku soo rogaan sharciyo Islaami ah. sharciyadaasna waxa ka mid ahaa filim ma daawan kartid, muusig ma dhageysan kartid, gabdhaha ma aadi karaan iskuulka, sidoo kale ma booqan karaan dhakhtarka, sidoo kale waa inay xirtaan dhar gaar ah, garka waa in loo jartaa hal nooc. sidoo kaleeto waxaa jiray waxyaabo badan oo aad ay u xadideen. kadib waxaa dhacday dhacdadii 9/11. Mareykankana waxa uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay hogaamiyihii Al-Qaacida Osama bin Laden oo ku dhuumanayay Afghanistan. Taliban asagoo oo kaashanaya. Talibanna waxay dhaheen waxa u baahannahay caddeyn inuu ka dambeeyay Osama bin Laden. marka ay diideenna Mareykanka waxa uu ku soo duulay Afghanistan. The Taliban will pay a price. dhowr bilood gudahoodna Taliban waxaa lagu qasbay inay xukunka ka degaan Afghanistanna waxaa laga dhisay dawlad cusub oo ku meel gaar ah. 3 sano kadibna Afghanistan waxa ay yeelatay dastuur cusub, waxaana Xamiid Karzai loo doortay madaxweyne. intii taasi socotay, Taliban dib ayay isku abaabushay, waxayna ka soo horjeedeen ajaanibta oo ay doonayeen inay baxaan, waxayna rabeen inay dib ugu soo laabtaan xukunka. waxa xigay waxay ahaayeen sanado colaado badan, welina waa ay socdaan. in ka badan 40,000 oo rayid Afghanistan ah ayaa la dilay. ugu yaraan 64,000 oo military iyo booliis Afghanistan ah, iyo in ka badan 3,500 oo askar caalami ah ayaa dhintay. Mareykanka oo kaliya ayaa ku dhawaad $1 trilyan oo dollar ku bixiyay mashaariicda dalka iyo dib u dhiska. intaas oo dhan kadib Afghanistan weli ma ahan mid xasiloon. Talibanna waa awood weli jirta. maanta Taliban waxay haystaan ilaa 85,000 oo dagaalyahano, waxayna leeyihiin xirooyin tababar oo dalka oo dhan ah, waxaana sii kordhaya aaga ay maamulaan. waa kuwa aad u abaabulan. hogaamiyahoodana waxaa lagu magacaabaa Hibatullahi Akhundzada. waxa uu madax u yahay ku dhawaad 10 guddi oo u qaabilsan arrimaha sida maaliyadda, caafimaadka iyo waxbarashada. sidoo kale waxaa hoos imaanaya mas'uuliyiin maxalli ah oo qaabilsan adeegga maalinlaha ah. taasina waa qaabka dawladda isbarbartaal ay u samaysatay Taliban. xitaa waxa ay leeyihiin maxkamada ayaga gaar u ah oo ay maamulaan. dhanka cadaaladda waxaa jira boos weyn oo bannaan gudaha Afghanistan, waana meesha ay dawladdu ku fashilantay. maxkamadahaas Islaamiga ah ee shareecada ay dadka aadaan si ay u helaan cadaalad. xakameyntaas dhami waxay Taliban ka dhigtay kuwa qani ah, sida laga soo xigtay xubno Taliban ka tirsan iyo guddi qaramada midoobay. waxa ay sanadkii sameeyaan ku dhawaad $1.5 bilyan oo dollar. waxay had iyo jeer lacag aad u badan ka helaan kobcinta opiumka iyo ganacsiga daroogada. laakiin xitaa waxay abuuraan sidoo kale dakhli. sanadkii hore waxa ay malaayiin dollar ka heleen qodista macdanta iyo ka ganacsiga macdanta. waxay kale oo ay leeyihiin nidaam canshuur ururin oo u gaar ah. waxay ka helaan maalgelin dibadda ah, inkastoo ilaha laga shakisan yahay ay diidaan sida Pakistan iyo Iran. muddo sanado ah beesha caalamka waxa ay isku dayeysay inay Taliban iyo dawladda ay wada hadlaan, ama ugu yaraan uu hadal dhex maro. xitaa waxaa jiray kulan ka dhacay Maldives hal mar intii lagu guda jiray xabad joojin koobneed xilligii ciidda 2018 ayaa waxaa la arkay Taliban iyo askar Afghanistan oo isku dhex milmay Kaabul, xitaa iyaga oo wada tukanaya. laakiin guud ahaan wada xaajoodiyada nabadda wax badan ma gaarin.
su'aashu waxa ay tahay maxaa dhici doona qiyaastii 10,000 oo askari oo Mareykan ah iyo NATO haddii ay baxaan dowladda Afghanistan ma awoodi doontaa in ay sii noolaato Taliban maxay ay sameyn doontaa waa hagaag rajada laga qabo nabadda iyo xasiloonida uma muuqato mid weyn xitaa iyada oo wada hadallada nabadeed ay socdaan ku dhawaad 1800 oo rayid ah oo Afgaani ah ayaa la dilay ama la dhaawacay 3 bilood ee ugu horeysay sanadka taasi oo ku dhawaad noqonaysa 30% in ka badan sanadkii hore waxaa sidoo kale jiray mowjado dilal ah oo dadku ku eedeeyeen Taliban waa ay sii socdeen dilalka lagu beegsanayo shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha galaangalka ku leh dhanka dawladda sidoo kale waxaa la dilayay suxufiyiinta iyo dadka u ololeeya arrimaha xuquuqda insaanka dadku waxa ay dareemeen amni darro aad u baahsan waxaa loo dirayay text message loogu sheegayo in dawladda aysan ilaalin karin ayaga dadka reer Afghanistan ayaa durbaba isweydiinaya sida ay noqon karto nolosha haddii Taliban mar kale ay la wareegto xukunka ma waxay laali doonaan oo jexjeexi doonaan dastuurka ilaaliya xuquuqda aasaasiga ee aadanaha dumarka ma safri doonaan ayaga oo san la socon muxrimkooda sidoo kale dumarka ma noqon doonaan kuwa xaakimiin ah sidoo kale dumarka ma u tardami doonaan inay noqdaan madaxweyne waa xaqiiqooyin aan la ogeyn wargeyska New York Times oo maqaal dheer qoray ayaa waxa uu soo qaadanayaa waxa laga rajeynayo Taliban oo ah inay dhisaan dawlad Islaamiya ilaaliyaan xuquuqda dumarka ee dhanka Islaamiga ah inay helaan waxbarasho sidoo kalena inay ilaaliyaan hadda waxa jira meelo badan oo Taliban ay ka taliyaan gabdhahana iskuulka ay aadaan laakiin ma ahan meelo badan haddaba taageero intee leeg ayaa loo hayaa Taliban xog ururin 2019kii la sameeyay 85% dadka ayaa sheegay inaysan wax naxariis ah u qabin waxaan ku safray meelo badan oo wadanka ah inta badan dadka intooda badan waxa ay muujinayaan inaysan wax xiiso u haynin Taliban